الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال dhageystayaal meel iyo waa joogtaanba ku soo dhawaada mar kaleeto iyo barnaamijkeeni toddobaadlaha ahaa ee halbeeg oo aad alaabaha lahayo kaleeto toddobaadkiiba aynu marku kulano hadduu allaha awood leh raali ka noqdo barnaamijka waxa aynu toddobaadkan ku soo qaadi doonaa ama aynu ku falanqeyn doonaa umuuro kala duwan haddaynu dib u milicsano barnaamijka waxa uu alaaba ku saabsan yahay amaba aynu hore ugu soo qaadanay barnaamijyo ay ka mid yihiin hanaanka dib u dhiska sare u qaadida iyo horumarinta mashaariicda dalka sidii dib loogu heli lahaa ciidamo qalab sida oo Soomaaliyeed sidii dib loogu soo celin lahaa wax soo saarka ama loo tayeyn lahaa dalag iyo wax soo saar sidii loo horumarin lahaa beeraha sidii loo horumarin lahaa amaba loo heli lahaa warshado looga faa'iideysto in ay mira bixiyaan amaba ay warshadeeyaan dalagga dalkeena ka soo baxa waxa dhanka kale ta garab socda qalalaasaha siyaasadeed ee wadankeena ka jira taariikhda iyo wacyiga bulshada haddaba toddobaadka ka horeeyay la soo dhaafay ayaynu waxaynu ku qaadanay barnaamijkeena dhibaatooyinka wadanka ka dhacayay ee ay keenayeen qalalaasaha siyaasadeed taas oo ay horseeday dhibaatooyinkii ka dhashay burburkii dalka haddaba waxaynu tusaale u soo qaadanay haddaynu dib u milicsano markii ay curatay xukuumaddii xisbigii military ee kacaankii hanti wadaagga ahaa 1969 Oktoobar markii ay in muddo ay shaqeynaysay kadib waxa uu kacaanku dagaal ballaaran ku qaaday isagoo oo doonaya in uu dib u hanto dhulkii Soomaali galbeed dalkaasi Itoobiya waxa markaa ciidamada qalabka sida iyo qaybihiisa kala duwan haddii ay ahaan lahaayeen ciidamada cirka dhulka iyo badaba aan duulaan aan loo kala harin lagu qaaday dalkaasi Itoobiya si dib loogu soo celiyo dhulka iyo dadka Soomaaliyeed ee Soomaali galbeed dagaalkaasi oo ay hogaaminayeen saraakiil kala duwan oo goobo kala duwan duulaanka kaga qaaday oo garab ka helaya dhammaan shacbiga Soomaaliyeed iyo isla shacabta Soomaaliyeed ee reer Soomaali galbeed ayaa waxa laga dhaxlay guul u soo hooyatay ciidamadii qalabka siday markii ay gacanta ku taabeen intii badnayd dhulkii Soomaaliyeed nasiib darradii barbar socotay ee dhacday ayaa waxa ahaa markii dawladdii ama xukuumaddii xisbigii military ee xilliga oo gacan saar la lahayd dawladihii shuuciga ahaa ee Raashka iyo dawladihii la midka ahaa sida Cuba in ay ka hor yimaadeen dhaqaaqaas ay dawladda amaba xisbigii military ay qaadeen iyaga oo doonayay in ay ku hantaan dhulka Soomaaliyeed kadib markii ay duulaankaasu ay soo qaadeen Warsaw waxa ay cardaaduqaha ka dhigeen amaba ay burburiyeen dhammaan kaabayaashii iyo goobihii militarigu uu dhufaysyadu ka dhigtay iyaga oo markaana jabiyay ciidamadii dalka kadib markii ay duulaan cir dhul bad iyagoo isticmaalaya dawlado kala duwan ay ku qaadeen waana duulaankii ugu adkaa ee inta ay NATO xusuusatay ee ka dhaca amaba ay duulaan ay qaado oo ay ka qayb qaataan Ruushka Cuba iyo dawlado fara badan haddaba markii uu jabay amaba ay jabeen ciidamadii qalabka siday isla markaana ay dib u gurasho xeel dagaal kaga baxeen dhulkii Soomaali galbeed in muddo ah kadib ayaa waxa dhacay in qaybo kamid ah ciidamadii qalabka siday ee Soomaaliyeed ayna isku dayeen inuu ay wadanka xilka kala wareegaan xukuumaddii xisbigii military ee kacaankii hanti wadaagga ahaa iyagoo markaa isku dayay inay sameeyaan afgambigaas oo markii uu dhacay kadib inkastoo uu fashilmay kadib ay dhacday in markaa laga qabto qaybo kamid ah amaba saraakiil ka tirsan saraakiishii ciidamadii dalka iyagoo ay qaybo kala u baxsadeen dalalkii dariska la ahaa nasiib darradii ugu darnayd ee dhacda waxay ahayd in ay qaybo ka tirsan ciidamadii qalabka siday ay gacanta u galaan amaba ay xiriir la yeeshaan Ethiopia oo ay dagaal ba'an kaga hortageen iyagoo isla markaa qayb ka ahaa ciidamadii ku jiray amaba hogaaminayay duulaankii Ethiopia lagaga saarayay dhulka Soomaaliyeed ee Soomaali galbeed haddaba markii ay in muddo halka abaabulo iyo isbahaysiyo ay ka wadeen ayay waxay duulaano kooban dhowr gaar ku soo qaadeen ciidamadii qalabka siday iyo xukuumaddii xisbigii military oo ay markii hore ka tirsanaayeen dagaaladaas oo in muddo socday ayaa waxa ay ku dhacayeen magacyo kala duwan oo ay jabhado ku soo duulay dalka xilliga
oo ay ka mid ahay jabhaddii SSDF, jabhaddii SNM, USC, SBM iyo jabhado fara badan oo kaleeto oo markii dambe samaystay ay ku guuleysteen in ay lugaha u laabaan amaba ay burburiyaan awooddii military ee xukuumaddii xisbiga. taasi waxa ay iyadana dhalisay in ay cawaaqib xun ku kacaan ciidamadii qalabka siday oo markaasi iyagu u arkayay cid walba oo gacan siisa jabhadahaas in ay yihiin khiyaanolayaal qaran, isla markaana mararka qaybto dad ay tuhumo iyo shakiya ka qabaan ay u geysanayeen tacadiyo. haddaba dhibaatadaas baaxadda leh oo ka dhacaysay ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay sababtay in gadood shacab uu dhaco oo ay shacbigii qaybo fara badan oo ka mid ah ay garab dhaba siiyaan, isla markaana ay garab istaagaan jabhadihii waddanka ka jiray, iyadoo aanay xilligaa haddaba jirin himilo muuqata marka laga reebo magacyada ay wateen jabhaduhu iyo qoraaladii u qornaa. haddana ma aanu jirin hanaan dhab ah oo haddii ay dalka la wareegaan waxa ay qaban doonaan iyo sida ay u wada shaqaynayaan ku wajahan oo cad, taas oo la oran karay inay halkaasi ka muuqatay ifafaale burbur oo waddanka kusoo wajahan maadaama halkaa ay ka jirtay qorshe xumi. haddaba jabhadahaas oo inta badan watay magacyo luqadaha qalaad ku qoran ayaa waxaa ka mid ahaa Somali Salvation Democratic Front oo loo yaqaanay SSDF iyo jabhaddii Somali National Movement oo loo yaqaanay SNM iyo jabhaddii USC oo iyadana loo yaqaanay United Somali Congress iyo jabhaddii SBM oo iyadana loo yaqaanay Somali Patriotic Movement. haddaba jabhadahaasi oo qaybtood ku guuleystay in ay la soo gaaraan inay xilka ka tuuraan xukuumaddii xisbigii military sida jabhaddii USC iyo SBM oo iskaashi siyaasadeed uu ka dhexeeyey, gaar ahaan caasimadda ay magaalada Muqdisho oo fadhiga xukuumadda ay ahayd in ay jabhaddii USC ay ku guuleysato in ay halkaa gacanta ku taabto, halka dhinaca gobolada Bay Bakool iyo Shabeellaha Hoose ay gacanta ku taabtay jabhaddii SBM. haddaba markii ay burburtay xukuumaddii xisbigii military sidoo kaleeto jabhaddii Somali National Movement SNM ayaa iyadana sidoo kaleeto waxa ay ku guuleysatay inay gacanta ku taabto goboladii waqooyi ee Soomaaliya. haddaba halkaas markii in muddo ah ay maamuladaasi si ku meel gaar ah ay uga hayeen ayaa waxa magaalada Djibouti ku dhashay amaba lagu sameeyay dawladdii ugu horeysay ee dibadda lagu soo dhiso oo loo doortay in uu madaxweyne ka noqdo Cali Mahdi Maxamed, isla markaana ra'iisul wasaare loo doortay in uu ka noqdo Cumar Carte Khalid, isagoo isla markaa Cumar Carte Khalid uu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyay ee xukuumaddii xisbigii military markii ay sii wiicisay ay u magacowdo in uu xilkaasi qabto. haddaba xukuumaddii Djibouti markii ay magaalada Muqdisho soo degtay iyada oo ra'iisul wasaaraheeda Cumar Carte Khalid uu shir jaraa'id magaalada Muqdisho ku qabtay uu sheegay in ciidamada qalabka sida ay dhammaantood ku wareejiyaan amaba ay isu dhiibaan jabhadihii waddanka ka jiray. halkaasi markii ay jabhad waliba ay ku biirtay jabhaddii ay u aragtay inay xubin ka noqon kartay amaba degaankii ay u aragtay in ay ku nabadgeli karaan in ay ciidamadii u kala qaybsamaan. haddana ma aanay jirin ifafaale muuqda iyo xiriiro dhaba oo ka dhexeeya jabhadahaasi. taasi waxa ay kaliftay in khilaafkii siyaasadeed ee ka dhashay jabhadaha dhexdooda, isfahmi waagii, kala sadbursigii iyo damacii ay kooxuhu doonayeen inay kooxibatan kaleeto iyadoo xilka ka qabato amaba ay xukuumadda amaba xilkii waddanka la wareegto, ayaa halkaa waxaa ka dhashay dagaal sukeeye oo kalifay in ay barakacaan kumaan kun Soomaaliyeed, isla markaasna iridaha loo laabo xiriirkii wada dhalashadii walaalnimadii, halkaasna uu ka bilowdo dagaal ku salaysan hayb, midabta koor, qabaliyad iyo istirnacayb. dagaalkaas oo qaatay in uu socdo muddo aad u fog ayaa waxaa ka dhashay dhibaatooyin fara badan oo siyaabo kala duwan ay dadka Soomaaliyeed ee rayidka ah ay ugu dhaceysay. haddaba gaboodkaasi oo markii dambeeto isu bedelay gobolaysi ayaa waxaa ka dhashay haddana in ay maamulo halkaasi ka dhashaan. maamulkii ugu horeeyay ee halkaa lagaga dhawaaqo waxa uu noqday maamulka Somaliland oo jabhaddii SNM amaba Somali National Movement ay ku dhawaaqdo in ay xorriyadeedii amaba ay gooni isu taag ka gaartay dhammaanba Soomaaliya inteedii kale. shirarkaas oo lagu kala qabtay magaalooyinka Burca iyo magaalada gobolkaas Awdal ee magaalada Boorama ayaa waxaa ka soo baxay in halkaa udubada loogu taago maamulka Somaliland.
in muddo ah kadib ayaa sidaynu hore toddobaadadii ugu horreysay aynu usoo qaadanay waxaa iyana maamul lagaga dhawaaqay magaalada Garowe oo ay halkaas ka talinaysay jabhaddii SSDF oo iyadana sheegtay in ay ku dhawaaqday amaba ay samaysay maamul la yiraahdo Puntland. waxaa taa garab socday maamulkii gobolka Banaadir oo ay la gudoomiyeyaal u noqdeen Cali Mahdi Maxamed iyo Xuseen Maxamed Faarax Aydiid. isla markaana waxaa gudoomiyaha gobolka Banaadir loo doortay nin la oran jiray Xuseen Cali Axmed. dhanka kale waxaa dagaalo goosgoos ah oo ay marba gacan haynta magaalada Kismaayo iyo Jubbada Hoose ay u galeysay koox ay ka socdeen dhinaca Jubbooyinka iyo gobolka Gedo. waxa ay muddo dagaaladaas u dhacayeen amaba isbedeladaas ay socdeen ayaa haddana mar kale abaabulo iyo la isku dayay in ay Soomaaliya heshiiso. haddana waxaa halkaa ka dhashay iskhilaaf shirar fara badan oo lagu kala qabtay dalkaasi Ethiopia, Kenya, Kaahira oo dalkaasi Egypt ah iyo meelo kaleeto ayaana waxba ka soo bixin. markii haddaba xaaladii aadaminimo ay sii cuslaatay oo ay dadka Soomaaliyeed tabaalihii iyo dhibaatadii ay dariska u ahaayeen ay sii korortay ayaa waxaa wadanka soo galay ciidamo la oran jiray UNISOM, kuwaas oo markoodii ugu horreeyay ku soo galay dadaal ay doonayaan in ay ku samata bixiyaan dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed ku haysta gudaha wadanka. masaa'ibahaas oo isugu jiray abaaro iyo dagaalo ay geysanayeen kooxihii dagaal oogayaasha ahaa ee markaas dalka ku amarka taagleynayay. nasiib daradii ka dhalatay ayaa waxay ahayd in markii ay soo galeen ciidamadaas shisheeye ay sidoo kaleeto ku dhaqaaqeen in ay iyaguna markooda ay lunsadaan khayraadkii wadanka iyagoo si aan sharci ahayn ula baxayay macaadin iyo waxyaabo la halmaala sida iyagoo ka howlgalay inay wax ka raraan bacaadkii weynaa ee la oran jiray bacaadka Shalambood oo ay mashaariic far badan ay dawladii xukuumadii xisbigii military ay ka haysay. iyagoo sidoo kaleeto magaalada Buurhakaba iyo Buurta Dheer ee magaalada Buurhakaba ka qaaday waxyaabo markaas sababay in ay ka dhashaan kacdoono ay ka kacaan shacabka Soomaaliyeed iyo kooxo kamid ah kooxihii markaa ku sugnaa magaalada Muqdisho. dagaal food la isdaray oo in muddo ah socday ayaa waxaa ka dhashay in ay ku dhintaan kun shacab ah, boqolaal shacab isla markaana ay ku dhaawacmaan dad aad u fara badan oo rayida isla markaana ay hanti ku burburto. dagaalkaas oo dhex maray UNISOM iyo General Maxamed Faarax Xasan Aydiid oo markaa hogaaminayay garab kamid ah garabadii burburay ee USC ee la oran jiray USC SNA. dagaalkaas oo caqabad ku noqday hawlihii aadaminimo iyo kuwii danaha gaarka alaha ee ay wadeen ciidamadii xilliga wadanka joogay, taasoo sababtay in ay markii dambe wadanka ka baxaan. qalaasahaas oo aad u sii dheeraaday kadib waxa uu kalifay in muddo ah kadib uu wadanku galo marxalad dhibteeda leh iyadana oo isla markaasina ay kooxihii wada socday dhexdooda ka wada dagaalameen oo ay koox waliba kooxda kaleeto ay isku daydo inay ka sadbursato amaba ay dhankeeda uga dhawaaqdo urur kamid ah ururadii jiray jawaab ka simira ama qaybo yar yar oo aad u maartay kala qaybsamay oo kamid ah. haddaba jajabkaas waxaa kamid ah in ay qaybsameen jabhaddii SSDF oo laba garab noqotay, jabhaddii USC oo dhowr garab noqotay, jabhaddii SBM oo dhowr garab noqotay. dagaalo sukeeye oo magaalooyinka qaybtood ka dhacay sida Hargeysa oo dagaal aad u ballaaran oo ka dhacay. sidoo kaleeto dagaal ayaa isagana wuxuu ka dhacay gobolka Bari iyo magaalada Garowe. dagaal lamid ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Gaalkacyo. sidoo kaleeto waxaan iyagu marnaba istaagin dagaaladii joogtada ahaa ee ka socday gobolka Jubbada Hoose. in muddo markii ay dagaaladaas socdeen oo wax ka soo naasacadaadana aanay jirin ayaa haddana mar kaleeto la isku dayay in la dhiso amaba la qabto shirweyne dadku ay ku wada tashanayaan oo lagu qabtay magaalada Djibouti ee Jamhuuriyadda Djibouti, halkaas oo ay ka soo baxday dawladii loogu magac daray dawladii Carta oo uu hogaamiye u noqday Cabdilqaasim Salaad Xasan. markii ay dawladii Cabdilqaasim coratay kadib ayaa haddana waxaa la galay qalalaaso siyaasadeed oo uusan wadanku marnaba isbedelin sidii uu ahaa. dhanka kaleeto waxaa ka jiray magaalada Muqdisho maxkamada islaami ah oo iyaguna kala xalinayay umuuraha bulshada, kuwaas oo ahaa kuwa kaliya ee la tilmaami karay xilliga inay ahaayeen hanaankii ugu wacnaa ee bulshada soo mara magaalada Muqdisho ku nool intii burburka noocaas lagu jiray. haddaba wixii tabaalaha iyo dib waxay socdaanba markii
la soo gaaray shirkii Embagati ee ay wada tashiyo iyo isu imaatin ay ku yeesheen kooxo ka mid ah kooxihii wadanka ku dagaalamayay ayay go'aan ku gaareen in ay qaataan amaba ay dhisaan dowlad badasha dowladii xilliga xilka haysay ee Carta oo madaxweynaha ka ahaa Cabdilqaasim Salaad Xasan halka iyana waxa ku corotay dowladii labaad ama dowladii saddexaad ee dalka dibadda lagaga soo dhoofiyo taasoo uu madaxweyne u noqday Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo markii ugu horeysay soo caga dhigatay amaba saldhigeedu uu ahaa gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Jowhar iyadoo halkaas muddo bila deganeyd kadib ayaa waxaa bilowday isfahmi waa isla dowladda iyo taageerayaasheedii soo kala dhexgalay taasoo kaliftay in mar labaad ay dowladdu u guurto magaalada Baydhabo intii magaalada Baydhabo ay dowladdu fadhiday ayaa magaalada Muqdisho waxa ka dhacay dagaal aad u ba'an oo dhex maray kooxihii ama hogaamiyayaashii kooxaha oo isa soo abaabulay isla markaana la baxay isbahaysiga la dagaalanka argagixisada iyagoo markaa argagixisada ugu yeereeyay qaybo ka tirsan maxkamadihii u adeegayay amaba u shaqeynayay danihii bulshada ee gobolka Banaadir ka shaqeynayay dagaal ba'an oo dadweynaha gobolka Banaadir iyo kooxihii dhex maray ayaa waxa ku guuleystay maxkamadaha oo garab ka helaya dhammaan qaybaha bulshada taasina waxa ay kaliftay in halkaas uu ka curto maamulkii maxkamadaha islaamiga ahaa ee Soomaaliyeed ee ay dadweynaha Soomaaliyeed iyo shucuubta caalamkuba ay soo dhaweeyaan ifafaalihii nabadgeliyo iyo rajadii ay dadku ka qabeen in amni ballaaran uu dalku ka dhaqan galay maadaama la furay airportkii magaalada Muqdisho oo shacbiga Soomaaliyeed ka xirnaa muddo aad u fog iyo sidoo kaleeto dekadii magaalada Muqdisho oo ahayd halbowlihii iyo aroorihii bulshada Soomaaliyeed ayaa mar qura la wada furay magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga qaaday dhammaan hubkii iyadoo oo la diiwaan geliyay dadka hubka haysta iyadoo ay dhacday intii ay xilligaas ay maxkamaduhu ay joogeen aanay dhicin wax qalalaas ah oo amniga ku saabsan waxaa sidoo kale la xakameeyay dhammaan burcadbadeedii waxaa soo yaraaday dagaal oogayaashii isbaarooyinkii iyo dhibaatooyinkii shacbiga lagu hayay in muddo kadib ayaa waxaa magaalada Baydhabo yimi amaba dalka gudaha u soo galay ciidamada Itoobiya oo markaas u arkayay in halkaasi ay khatar kaga soo socoto isla markaana sheegayay inay gacan siinayeen xukuumadii markaas fadhigadu ahaa magaalada Baydhabo ee gobolka Bay halkaasna waxaa ka dhashay iska hor imaad hubeysan oo dhex maray ciidamadii Itoobiya oo garab siinayay xukuumadii taagta dareed ee Baydhabo fadhiday xilliga iyo maxkamadihii islaamiga ahaa oo garab ka helayay shacbiga Soomaaliyeed dagaalkaasi waxa uu noqday dagaal kalifay in uu bedelmo wajigii dagaalkii qabaliga ahaa ee wadanka ka socday iyadoo dhibkaasu uu aad u saameeyay hadaba inagoo barnaamijka qaybtiisa labaad ku noqon doona waxaan bal fursad siin doonaa khadka telefoonka oo aan jeclahay inaan dhageystaha ugu horeeya bal aanu ka weydiino bal aragtidiisa wuxuu ka oran lahaa muxuu kala socdaa ama aad kala socotaa arrimahaas maxaad ku dari lahayd taariikhdaas iyada ah oo aanu doonayno inaanu bulshadeena la wadaagno maxaad sixi lahayd maxay kula tahay dhageystaha labaad ku soo dhawow magacaaga iyo halkaad nagala soo hadlayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله مقعي ومحمد وحن كسوها الله يا لندن محمد السلام يا aragtidaada waxa aad ku kordhin lahayd barnaamijka iyo ifafaalaha taariikheed aanu soo qaadanay iyo waxaad ku dari lahayd ma jira waxaad goobjoog u ahayd ma is leedahay waxa wala intaan tablaabin waxa weeye waxaan doonayaa toban ku soo dhaweynayaa dhowr cisho horena ku daawaday dadaalkaad wado horta ku soo dhaweynayaa talabaad waxa weeye walaal taariikhahan dhacdooyinkan Soomaaliya ka dhacay hadda soo fadhino hadii dacdo ay dhacdo anna sibaad u qoraysaa anna sibaad u qoraya marka way maxaa way adag tahay in dacdo la wada wadaago iyadoo xitaa maartay horteena ka dhacday inuu si u sheegno waxa ay dhacdooyinka weyn Soomaaliya soo maray qofo si uu sheegay iyadoo xitaa la og yahay maartay in dhibaatadu ay farabaday wuxuu man doonayay inaan sheego waxa fiican haddana waxaan maqlay dhawaan in guddi la xil saarayo yani waxaan u sii socdaa in dhawaan dowladda Soomaaliya ay guddi saarayso saxda taariikhdii barigii hore Soomaaliya khalad jirtay waayo taariikhdii hore Soomaaliya jirtay ee la qoray may metelin dadka Soomaalida oo dhan iyo raqamada ayaa
ayaa isu soo qabtay. marka waxaan uga socdaa insha allah in taariikhdan dowladdan Soomaaliya ee madaxweyne xasan uu wado inuu guddi xaqiiqada wada oo cadaalada oo taariikhdii Soomaaliya intaan isticmaalkii sidii loola dhaqmay dabadhilifyadii dhinac walba hadday waqooyi tahay hadday koonfurta markii Soomaaliya Ingiriisku soo galay markii Talyaanigu soo galay markii xabashidu soo gashay hadda markankii waxaasoo dhan waxaan ka wadaa in taariikh cadaalada oo la qoro waayo haddana waxyaalaha aynu isku haysano waxaa kamid ah in cadaalada horta wax walba cadaalad ay soo gasho tan hadda aad wado waxa weeye walaal gacali haddaan si yaro kooban kusoo maxaa la yidhahdaa kugu sheego dhibtayna haysataa inagu kama doona tii Kenya iyo Ethiopia ka dhacday iyagaaba inaga dhib xuma hadda markii doorashadii tan ka horreysay Kenya ka dhacday siday isu waayeen wala socotaa markiiba waa gartay maxamed adigoo khadka ku jiraya wax yar aan dib ugu noqono haddaba dhinaca taariikhda si marka aynu usoo gaarno goob aynu doodeena ka bilowno haddaba markii ay dhibaatooyinka faraha badan ay in muddo ah socdeen dagaalkaas aadka u ballaarinna uu dhacay waxaa dhacday in laga adkaaday maxkamadihii islaamiga ahaa isla markaana uu bilowday dagaal gorilo ah amaba dagaal aan toos ahayn oo markaa lagaga soo horjeeday ciidamadii Ethiopia iyo xukuumaddii ama maamulkii Cabdullaahi Yuusuf Axmed uu hogaaminayay ee ay ciidamada amaba dowladda Ethiopia ay garab ka siinaysay halkaa waxaa ka cortay amaba ka bilowday in dhammaan dadkii ka soo horjeeday dagaalka lagu eedeeyay inay ahaayeen kooxo argagixiso ah oo amni darro dalka ka wada haddaba kacdoonkaas isaga ayaa waxaa hogaaminayay nin markii dambeeto dalka xil ka qabtay ama madaxweyne ka noqday oo la oran jiray Shariif Sheekh Axmed oo markaasna ahaa gudoomiyihii maxkamadaha islaamiga ahaa ee muddadii 6 bilood xilka hayay haddaba dagaalkaasi oo aad u daba dheeraaday kadib ayaa markii laga adkaaday maxkamadihii islaamiga ahaa ee xilliga talada dalka ka hayay amaba inta muddada ah ka talinayay waxa ay isugu tageen amaba ay shirar ku qabsadeen meelo kala duwan oo ka tirsan dalka iyo dalka dibaddiisaba iyaga oo markaa bilaabay in ay dib isu soo abaabulaan isla markaana ay uga hor yimaadaan amaba sidii ay waddanka dib taladiisa ay ugala wareegi lahaayeen dagaalkaasi waxa uu kalifay in ay ku nafwaayaan dhammaan amaba dadkii ka agdhowaa goobihii ay dagaalka ka dhacayeen haba ugu dhibaato badnayd agagaarkii garoonka kubadda cagta ee magaalada Muqdisho waxaana halkaa ka dhacay gabood aad u foolxun oo ka dhexdhacayay dadkii halkaa ku dagaalamayay iyadoo ay barakaceen dad aad u fara badan nasiib daradii halkaasi ka dhacday ayaa waxay ahayd in ciidamada Ethiopia ay halkaasi ka geystaan xasuuq aad u ballaaran oo ay ku nafwaayeen kun dad rayid ah oo aan waxba galabsanin iyadoo mararka qaybtood ay dhacayeen in la duqeynayay amaba ay gantaaluhu gaarayeen meelo aanu dagaalku ka dhacaynin dagaalkaasi markuu in muddo ah socday kadib waxa magaalada Muqdisho ka soo degay ciidamo horle oo ka tirsan ciidamada AMISOM amaba ciidamadii ugu horeeyay ee ahaa kuwa AMISOM oo ka socday dalkaasi Uganda iyagoo sidoo kale dagaalkii 9 Abriil iyo May ka dhacay magaalada Muqdisho qayb ka noqday isla markaana gacanta ku taabay hoteelkii weynaa oo kamid ahaa hoteelada magaalada Muqdisho ee Hotel Ramadan ee ku yaalay waqooyiga magaalada Muqdisho halkaasi oo dadkii halkaa ku jiray markii dambe dagaalka iyagoo aan ka bixin ay qaybtood gacanta ku dhigeen ciidamada AMISOM ee dalkaasi Uganda dadkii kacdoonka waday ee xilligaa ka hor dagaalamayay ciidamada Ethiopia ayaa waxa ay dagaalkoodii ku baahiyeen qaybo cusub oo hor leh oo ka tirsan magaalada Muqdisho iyagoo oo isku si ula dagaalamay ciidamada Uganda iyo kuwa Ethiopia oo isku garab ahaa iyo ciidamadii maxkamadaha islaamiga ah iyo shacabka magaalada Muqdisho oo garab siinayay dagaalkaasi waxa uu ku baahay meelo aad u fara badan oo ay kamid tahay magaalada Kismaayo iyo inta u dhaxaysa gobolka Jubbada Hoose iyo gobolka Banaadir dagaalkaasi oo runtii noqday dagaal aad u ballaaran ayaa waxa dhacay in markii dambeeto gobolka Jubbada Hoose lagaga adkaado ciidamadii Ethiopia iyo ciidamadii xukuumadii Imbagati ee xilliga xilka haysay isla markaana ay halka ku waayaan gobolkii Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe waxa sidoo kale khalkhal galay wadadii dheereed ee u dhaxaysay gobolka Baay iyo gobolka Banaadir taasoo isku xiriirsan magaalada Baydhabo iyo magaalada Muqdisho oo u ahayd halbowle maamulkii Imbagati haddaba dagaalkaasi wuxuu waayay socdaba waxa ay noqotay in dhammaanba lagaga adkaado xaafado ka tirsan xaafadihii magaalada Muqdisho ciidamadii Ethiopia oo isla markaasna uu noqdo dagaal aad u ballaaran oo mar walba ku sii baaha qaybo cusub isla markaana
lagaga gacan roonaanayay maamulkii Embagati oo gacan ka helayay ciidamada Ethiopia. Dagaalkaasi waxa uu kalifay in ugu dambeyntii ay Baydhabo isugu ururto dowladii iyo magaalada Muqdisho qayb ka tirsan, taasoo markii ugu dambeysay khilaafyada dhexdeeda ka dhex dhashay ay noqotay in uu iscasilo madaxweynihii xilligaa xilka hayay Cabdullaahi Yuusuf Axmed, iyadoo dhanka kale uu khilaaf soo kala dhex galay kooxihii dagaalka kaga soo horjeeday oo markaa magaalada Casmara ee dalka Eritrea xarunta ay u ahayd, gudoomiyahana uu ahaa Shariif Sheekh Axmed. haddaba dagaalkaasi markii uu in muddo ah socday, khilaafkuna uu garab socday, ayaa waxaa dhacay in shir lagu qabto magaalada Djibouti ee jamhuuriyadda Djibouti, isla markaana lagu doorto Shariif Sheekh Axmed oo ay doortaan baarlamaankii ka soo haray dowladdii hore iyo xubno lagu kordhiyey. halkaa intii dagaaladaasi socdeen waxaa iyadana halkaa ka curtay xarakatu shabaabul mujaahidiin oo qayb hore uga ahaan jirtay maxkamadihii islaamiga ahaa, isla markaana ahaa garabkii ugu cuslaa ee sida dhabta ula dagaalamay Ethiopia, isla markaana iyagu aan dalka ka bixin, oo sheegay in cid walba oo dagaalka ka carartay inay beri ka yihiin, isla markaana ay sii wadi doonaan dagaalka, cid walba oo timaadana ay la dagaalami doonaan haddii aanay ku socon wadiiqadii ay ku yimaadeen. haddaba markii ay arrimahaasi socdeen ayaa markii la doortay dowladdii Shariif Sheekh Axmed, haddana waxaa bilowday dagaalo hor leh oo dhex marayay labada urur ee Xisbul Islaam iyo xarakatu shabaabul mujaahidiin oo iyaguna markaa ka soo horjeeday Shariif Sheekh Axmed oo hore u ahaa hogaamiyahoodii ruuxiga ahaa xilligii maxkamadaha islaamiga ahaa, balse hadda sida ay iyagu ku eedeeyeen ku biiray hanaanka ama waxa ay ugu yeereen dimuqraadi doonka, sida ay iyagu warkooda u dhigeenna ay sheegeen in halkaasi ay ku dagaalamayaan dimuqraadiyadda iyo shareecada islaamka. dagaalkaas oo noqday dagaal aad u ba'an ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho, isagoo in muddo socday ayaa markii dambe waxa uu gilgilay madaxtooyada iyo dhammaan qaybihii ay dowladdu ka haysatay magaalada Muqdisho kadib markii ay ku soo siqeen, isla markaana ay ku sigteen inay gacanta ku taabaan gabi ahaanba magaalada Muqdisho xoogagii xarakatu shabaabul mujaahidiin iyo Xisbul Islaam. iyadoo dagaalkaas ba'an uu socdo ayaa dagaalkaasi waxaa ku soo kordhay ciidamo hor leh oo ka yimid dalkaasi Uganda oo garab siinayay ciidamadii difaacayay dowladdii xilligaa lasoo doortay oo madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed. markii ay ciidamadaas ama cutubyadaas ay ku soo kordheen dagaalka ayaa waxaa la riixay ciidamadii Xisbul Islaam iyo kuwii xarakatu shabaabul mujaahidiin. halkaana waxaa ka furantay in maalinba meel lagaga awood roonaado, isla markaana markii dambe ay magaalada Muqdisho ka baxaan kadib markii ay dhexdooda iska khilaafeen oo uu dhexdooda meelo fara badan ay rag iskaga laayeen. markii dambena ay noqotay in Xisbul Islaam uu ku biiro xarakatu shabaabul mujaahidiin, halkaasina ay noqoto in al-shabaab iyo dad ku khasban in ay raacaan aragtidooda in ay ku wada midoobaan isla ururkaas. in muddo kadib ayaa waxaa la soo gaaray xilligii ay dhici lahayd doorasho, taasoo halkaasi kaliftay in khilaafyo kaleeta ay ka dhacaan. haddana halkaas lagu casilo ra-iisul wasaare ka mid a ra-iisul wasaareyaashii xilka xilligaa hayay oo loo arkay dhaqdhaqaaqiisu inuu u badan yahay dhaqdhaqaaq wadani ah, isla markaana ay soo tarayso awooddii dowladda, waxyaabo fara badanna uu qabtay. khilaafaadkaasi oo kasii dhashay kadib markii uu xilligaasi ra-iisul wasaarihii talada hayay ee Farmaajo uu ku eedeeyay in United Nationka wakiilka qaramada midoobay ama Soomaaliya u jooga inaanu raalli ka ahayn in uu magaalada Muqdisho yimaado, isagana aanu raalli ka noqon doonin in hantida ummadda Soomaaliyeed iyo magaca ummadda Soomaaliyeed loo isticmaalo siyaabo khaldan, isla markaana wadan shishe oo aan wadankii ahayn loo isticmaalo. khilaafkaas oo cirka isku shareeray oo muddo badan u dhaxeeyay Mahiga iyo Farmaajo ayaa markii dambe wuxuu u saameeyay in uu soo dhexgalo dowladda dhexdeeda, isla markaana kalifo in xilka laga qaado ra-iisul wasaare Farmaajo. si xilka markii laga qaadayna uu u dhacay heshiis ama wax loogu magac daray roadmap kaas oo ay ka curatay xukuumadda maanta jirta oo qaadatay nidaamka federaaliga ah. haddaba xubnihii ka qayb qaatay in la sameeyo roadmap kaas ma yihiin kuwa matala dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed? cod miyay ku lahayd Somaliland? cod miyay ku lahayd amaba ay ku lahaayeen jubbooyinka, gedo, meelaha kala duwan? ma la oran karaa maamulka Puntland, galmudug, ahlu sunna wal jamaaca iyo Shariif Sheekh Axmed waxa ay mataleen ummadda Soomaaliyeed oo dhan dastuurkii
ay ku maamuli lahaayeen go-aankeeda iyaga ayaa leh. haddaba waa qodobka aynu maanta ka duuli doono oo aynu falanqeyn doono. federaalku halkee ayuu sal ku hayay? halkee ayaa federaal noqon doonta? ma dhabbaa in degmooyinka iyo gobolada soomaaliya dastuurka uu u yaqaano in ay yihiin dowlado? maxay ay kula tahay? taariikhdaa lasoo marayse maxaad ka haysaa? ma tahay qof ka qayb qaatay dhibaatooyinkii wadanka ka dhacay oo doonaya inuu aragtidiisa nala wadaago? mase is leedahay fursad iscafis ayaa halka ka furan oo malaa banaankaa loo soo bixi karaa, oo haddiiba ay wax kaa dhaceen waxaad oran kartaa waxaa la joogaa cafallaahu camaa salafe. war mahaaldadow miyaa lay cafinayaa? haddaad doontid magacaaga ha sheegin. waxay u furan tahay dhegeystayaasha. waxaan idin leeyahay barnaamijkaynu ku qaadaa dhigi doono yay tahay cidda leh awoodda ugu dambaysa ee inay go-aan ka qaadato. haddaba kusoo dhawow, horena u gudub barnaamijkaaga. dhegeystaha koowaad. magacaaga iyo halkaad nagala soo hadlayso. wacalaykum asalaam waraxmat. hore u soco. magacaagii halkaad nagala soo hadlayso. sweden baan kaala soo hadlaya. maxamuud bays baa layadaa. maxamuud bays baa layadaa. qays soo dhawow. sweden ka soo hadlaya. aad baad umahadsantihiin. waxaan idin odhan lahaa in yar baan idinku kordhin lahaa anugu. hore u gudub. waxaan odhan lahaa inaad yacniga wixii dhacay iyo dhibaatooyinkii inaad ku laabataan maanta ma wacana. dadka waxa la maqashiyana ma wanaagsana. inaad waxa wacan dadka kala talisaan baan anagu idinku waanin lahaa. hadal wanaagsan. maxaad kaloo ku daraysaa qays? marka maanta horumar baa lagu socdaayo. waxaa laleeyahay sidee dadka la isugu soo jiidaayo. waxaasaa soo dhacay al-shabaab iyo xusbu islaam iyo balaayooyinkii soo dhacay in lasoo tiriyo cabdillahi yuusufa meel hebla ka baxayo dawladda meel dhaafi weydayo. walaalo waxaas waxaan u malaynayaa inaan dadka maanta dan u ahay. nin walba wuxuu soo taabtay dhuxushiibuu soo taabtay. aada iyo aad. marka waxaan idinku waanin lahaa qoladiina tifiyada inaad dadka waxyaalihii maanta laysku raaci lahaa waanisaan. dadku waa jilcay, waa dhibaataysan yahay. waxa weeye dastuurkii ninkii dhisay de nin soomaaliyeed unbuu ahaa. dawladda ninkii dhisay nin soomaaliyeed buu ahaa. sheekh shariif nin soomaaliyeed oo wanaagsan buu ahaa. cabdiweli nin la xusuu ahaa oo wanaagsan. waa raggii qaraxa isu dhigaya aad arkasinti madaxdii oo dhan ay ka baqeen meeshii. qays oo sweden naga soo wacay, dareenkaaga waanu soo dhaweynaynaa. qays oo hal arrinna waa inaynu ogaanaa ifafaalaha soo socda. ifafaale kama bixin karno taariikhda haddii aynan wixii dhacay aynan wax ka taaban, si aynu uga gudubno waayihiina soo maray. marxalad adag bayna soo martay. haddaynan jiilasha maanta jooga kuwa soo socda wixii ina ku dhacay ee dhibka ina geliyey haddaynan falanqayn oo aynan sheegin wixii dhacay, maaha inaynu leenahay maxkamad baa la taagan yahay halays xukumo. waxaynu leenahay taariikhdaasaa dhacday, maxaa looga gudbi karaa? halkaas aynu ka ambaqaadno. waayahay walaalow. waxaan yani waxaa jirta baa dhuxul damba suwan wax la yihahda baa jira walaalow. aada iyo aad. marka dhuxushii hadda maanta inaynu faadfaadnay dambaskiyadu ka sareeya rag dad badan oo xanuunsanayaa jira oo dhuxushii dabkii kusii yaalo. inay boogta danaqda maaha. waa ina waxaan idinku waanin lahaa boogta inaad danaqdaan maaha. maanta sidee baa dadka la isugu soo jiidaya? sidee dawladdu wax ku xukumaysaa? sidee gobolada lagu qaybsanaya? sidee kuwa qaylinaya lagu aamusiinaya? sidee kuwa cidiyaha ku dagaalamaya ee doonaya madaxweyne isu sharaxaya iyadoo madaxweynihii taagaya loola hadlaa? sidee loo qarciyaa? sidee kacabanaya loo qarciyaa? sidee kii dhibta sheeganaya loo bogsiyaa? ayaa maanta wadadaasaynu ku soconnaay. haddaynu soo marno ilaa al-shabaab iyo ilaa cabdillahi yuusuf iyo general morgan aynu soo xisaabino, dhibka un baa sii faarfaaraysaa. dhibkaa inaga baktiya walaala wixii dhacay dhace. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay qays. aad iyo aad waxaan jeclahay inaad waxyaalaha iska daysaan oo aad dadka isu keentaan walaalow gacali. aada iyo aad baad umahadsan tahay qays. waa dareen loo baahan yahay oo runtii dadka soomaaliyeed in ay fahmaanna loo baahan yahay. waxaa muhiim ah maxaa dhacay, wixii dhacay ma soo noqonayaan inay wax dambe ina ku ridaan oo dhibaato le mooyaane. haddaba inaynu ka faa'iidaysano waayaha wixii ina soo maray islamarkaana aynu ifafaale ka bixino maxaynu doonaynaa. dhegeystaha labaad ayaan jeclahay inaan u baaqo. magacaaga, halka aad nagala soo hadlayso iyo aragtida aad ku kordhinayso barnaamijka adiga oo teleefonka nagala soconaya. fadal kusoo dhawow.
hay halkaad nagala soo hadlaysay magacaaga ku hormar walaal waxaan rabaa inaan barnaamijka ka qayb qaato aad iyo aad kusoo dhawow codkaagana sare u qaad waxaan kasoo hadlayaa Sweden waa Sweden miya Cismaan Sweden kusoo dhawow walaal waxaan rabaa waxaa laga hadlayaa taariikhda Soomaaliya aad iyo aad soo dhawow Cismaan ha wax badan ayaa Soomaaliya ka dhacay xasuuq badan baa la geystay sida aad sheegtay dagaaladii ugu dambeeyay muqdisho ka dhacay dad badan oo Soomaali oo waxba galabsana lagu xasuuqay maxaa xal ah dhibaatooyin fara badan baa dhacay xilliyo fog dhacayay arrimaha dhacay waxa ka dhashay Cismaan waxaan ku saxo dhibaatooyin fara badan ayaa dhacay marxalado kala duwan ayaa la soo maray maanta waxaynu taaganahay marxaladan maanta aynu joogno oo dhibaatooyinkii dhacay qaybo fara badan oo kamid ah ay dhacayaan maxaa halku maanta ku jira maxaynu ka oran karnaa go-aanka ummadda Soomaaliyeed ay ku leedahay inay aayaheeda ka tashato go-aan intee la-eg baa lagu leeyahay sidee baynu mustaqbalkeena u sheeb garayn karnaa halkaa ka wad waa hadal fiican waaye hadal fiican oo wanaagsan qudadana ma fiicno dadkii muqdisho oo aan ognahay sida loo xasuuqay dad qudad qabo ma ahan eedeeyaan laakiin dadkii aan xasuuqa geystay ayaa weli taagan oo meel walba media taagan oo dadka ma aragtay hadlaya si xun ayagoo shalay wax xun geystay oo dad masaakiina laayay Cismaanow maxaa xal ah baynu ku jirnaa wixii dadkaas waa inay ayaga naftigooda dib isugu laabtaan odayaalay leeyihiin waxay leeyihiin dad aqoon-yahanay leeyihiin maaragtay waa inay isqabtaan oo maaragtay aysan meelaha soo muuqano dadka ay waxyaabihii xanuunkii dhacay aysan xalka marka waxaad u aragtaa inaan maaragtay dadka dhibka geystay aanay dhibkii ku noqonin inaanay soo muuqanin in la iscafiyo waa qabaa in la iscafiyo Soomaali hore u socoto baa dhinteen waa gartay haddaba aad ayaad Cismaan ugu mahadsan tahay aragtidaada waana soo dhaweynaynaa run ahaantii aad baan usoo dhaweynaynaa haddaba inta khadka aanu khadku marka ugu horeysa waa uu inoo furan yahay dhammaan ka qayb qaatayaasha barnaamijka balse waxaan jeclahay inaan dib u milicsano intii ay dhacayeen dhibaatooyinkaas faraha badan oo aynu hore usoo sheegnay waxaa dhibaatooyin lamida ay ka dhex dhacayeen kooxaha xilligaa kasoo horjeeday dowladda laftigooda oo iyaga laftigooda marna la taargetgareynayay marna wax taargetgareynayay meelaha qaybtood waxyaabaha ka dhacaya oo yaab kale waxaa ka mid ah in dad aqoon-yahano ah oo aan waxba galabsan oo culimo ah la dilayay iyadoo qaybtood masaajidka lagu dilayay haddaba dadkan yaa leynaya ma idinla tahay in loo baahan yahay bal in la eego dib loo baaro magacyadan faraha badan ee dhibaatooyinku ay ku dhacayaan war maxaa ka dambeeya in dib laysugu noqdo dhegeystaha labaad waxaan jecelahay magacaaga iyo halkaad joogto adigoo nagala soconaya telefonka nagala soconaya fadlan TV-ga nagala socda telefonka nagala socda السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. ولا waxaan rabaa inaan ka hadlo Soomaalida in la heshiisiyo. aad iyo aad soo dhawow telefonkana nagala soco TV-ga ka fogow telefonka waan kan ku hadlaa Soomaa TV-ga ka fogow haye ma ila socotaa haddaad maqlayso telefonka nagala soco mar kale waan soo socday okay hore u soco marka okay waa mahadsan yahay haddaba daawadahaasi inta haddaba haddaad imaqlayso telefonka nagala soco waa kuu fasaxan yahay hore u gal marka iska jaabinay okay go on walaal waxa waaye Soomaali say uma kala maarmato way wala dhaleen waa dad walaala waa dad isku diin ah waa dad isku dhaqan ah ka noor jooga iyo ka sad jooga iyo ka east joogaba intaba waa isku walaalo halo hore u soco waa ku maqlayaa ha marka maanta meesha aanu gaarnay
markaan anigu aan iska hadlo ها waxaan ahaa waddan waxaan lahaa dawlad le ciidan le wax walbaba le واقرتي maantana ciidan la-aan iyo wax la-aan iyo waxbaan noqonay واقرتي innaga isku geennay dhibaatadaas واقرتي markaa maxaa xala maxaa looga bixi karaa waa jirtaa inaynu dhibaatada inaga isu geysanay laakiin sidee baynu dhibaatada ina ku dhacdo uga bixi karnaa sababtaan kuu sheegaa dawlad afrikaan aanu nahay waa gartay afrikaankii laftigood iyo cadow nagu ah waa gartay maxaa xala marka halku muxuu ku jiraa wax yar aan ka dhex galo sababtan waxaa ma taqaanaa haye Ethiopia iyo Kenya ba dhul bay naga haystaan waa gartay sidaan Google aan ugu fadhiisana bal ii sheeg bal marka ugu horeysa bal dhulkeygii hore iyo haddana annagii baa nala kala gatay waa gartay oo qori la iskugu keen dhiibay maanta markaan south aan joogo ama north aan joogo haddar aniga markaan iska hadlo aniga shakhsi ahaanteyda carruurteeda hooyadood waa isaaq waa ka xunnahay dhegeystahaas aad baan uga xunnahay walaal waana ka cudur daaranayaa runtii ma doonayo inaan qabaa'il Soomaaliyeed qofku wuxuu doono ha ahaado reer hebel baan ahay in uu yiraahdo aad baan waan kugu raacsanaa waa runta qof Soomaaliyeed af Soomaali ugu hadlaya gaarigaas oo gobolkii aad ka timi iyo degmadii aad ka timi waxaan aad kaaga codsanayaa ama waan jeclahay inaan dhageystayaasha barnaamijka igala qayb qaadan doona laftigooda aan ka codsado inaanu marna qofka ii sheegan waxa uu yahay xaaskiisu waxa ay tahay in Soomaaliya yahay qofku aad baad maasanta waan ku fahmay aniga Soomaali jecel ma jira anaba Soomaali ana waa inaan nafsadeeda aan jeclaada marka hore aad yaad walaalkeen waa inaan u jecel sidaan anigu wax u jecel waa inaan aragtidaada hore u gal adoo mahadsan aragtidaada hore u gal maxay kula tahay wax waaye maanta yaana la soo kala dhaxgelin gogasha inagii noo filan tahay waa gartay waxaan u gartay marka waxaan hadalkaaga u gartay waxaan hadalkaaga u gartay odayaasheeni waa in dib loogu noqdo dhalinyaranimo iyo waa loo baahan yahay dhalinyarada waa gartay waxaan hadalkaaga u gartay in la gaaro isku filnaansho oo ay dadku iyagu isku filnaadaan la helo dawlad maaragtay dadka matasha shacabku inuu mid noqdo halkaas aan u gartay marka ciidankeeni dawladnimadeeni ha xumaata dawladii maamul buu xumaadaa Yurubtan aan joogna iyo xitaa dhibaato ka dhacdaa moogta sax marka wadaninimada qofka bini'aadanka waa inuu isaga nafsadiisa uu qiyaasa waa gartay haddaba aad ayaad u mahadsan tahay waana soo dhaweynaya runtii waa dareen Soomaalinimo ay ka muuqato oo ay ka muuqato wadan iyo dad jacayl isla markaasna aan aad u soo dhaweynayno haddaba aad ayaad u mahadsan tahay waa ku hambalyeynayna haddaba sidoo kaleeto intii ay dhibaatooyinkaas iyaga ah oo aan hore u soo sheegnay ay soconayeen waxaa wadanka soo galay ciidamada Ethiopia mar labaad iyo ciidamada Kenya oo dhinaca Juba ka soo galay halkaas oo markii dambe ay ka dhalatay amaba uu ka bilowday shirkii maamulkii Jubbaland loogu magac daray uu ka dhashay haddaba taasoo markii dambe iyada iyo dawladda khilaaf aad u balaaran soo kala dhexgelisay isla markii dambe tan lagu heshiiyey in markaasi maamulkaas uu noqdo maamul ku meel gaar ah laguna xaliyo barnaamij nabadeed shir ka dhacay magaalada Addis Ababa darteed haddaba dhibaatooyinkaas oo marba meel marayay ayaynu dabcan iyana soo qaadan doonaa haddaba go'aanka yaa leh maxay tahay kaalinta shacabka Soomaaliyeed arrintan ay ku leeyihiin maxamed oo magaalada London naga soo wacay ayaa khadka ku jira maxamed magacaaga iyo goobta soo wicitaanka walaal magacayga maxamed baan yiraahdaa maxamed waxaan joogaa London aha horta barnaamijku waxoogaa waa iga horeeyey aad iyo aad dibtaan marka ulama socon laakiin waxaan u gartay inaad leedahay Soomaalidan kala tagtay oo kala burburtay xal maxaa u ah waa gartay exactly waa sida barnaamijku sababtu waxay tahay maanta waxaa muuqata wadankii marxalad dadkii uu ku sugan yahay inay tahay marxalad xasaasi ah shaki la kala qabo marka laga eego shirkii Brussels oo kaleeto
dadkii waana wada socdaa waana kala socdaa kalsooni ma jirto meelaha qaybtood waxyaabaha muuqanaya waxaan maxaa dhaliyey dad isku mabaadii sheeganayay in ay xukuumaddii xisbigii military iyo kacaankii shuciga ahaa ay meesha ka saarayaan jabhado kusoo noqday oo kulligood magacyo wata Somali Salvation Democratic Front, United Somali Congress, Somali National Movement, Somali Patriotic Movement iyo magacyo la wada midoo wada Soomaali ah oo SSDF, SBM, SNM, USC waxyaabo noocaasa maaragtay wadankii markii hore waxbaanu qabanayna wadanka kusoo galay way burburiyeen dhibaatooyin bay keeneen maamuladii gobolada iyo xaafadihii degmooyinkii dalka waxaa la sheegay inay yihiin dowlad goboleedyo oo ay goboladii degmooyinkii dowlada yihiin waxaa la doortay madaxweyne cusub oo doonaya inuu isbedel sameeyo oo shaqooyin fara badan qabanaya isla markaasna ay caqabado fara badan ay wadankii ka dhex jiraan xalku muxuu yahay kaalin intee la eg bay dadka Soomaaliyeed ku leeyihiin wadankooda iyo ayahooda inay wax ka yiraahdaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay barnaamij fiicanna waad keentay laakiin waxaan rabaa ra'yigayga kaliya inaan ku soo koobo maahan aniga waa midka shakhsiga soo dhawow maahan inaan mid kale iyo meel kale asiisaa taabto soo dhawow aniga waxa weeyaan dadkar ahaan waxaan joogaa rubcu qarni baan noolahay anigu waa gartay macnaha waxaan ahay nin konton jira marka ugu yaraado waa gartay kontonkaas sano qofka jira maanta ee Soomaaliya joogana gumaysi muusan arkin waa gartay waxaan la kursanay dawlad iyo calan baan la kowsanay waxay doontaba ha ahaatee wax gumaysiga Soomaaliya maysan arkin waa gartay kuwii naga horeeyana meelahan koonfurta waa la sheegay xoogaa gumaysiga ka dhacay xataa waqooyiga waxaa la sheegay inaan wax gumaysiga ka dhicin sax ninkan ingiriiska uu haysan jiray xoogaa yar maartay haddaba arrinta aan kaa soxo wax yar dhanka barnaamijkan ama barnaamijkan halbeeg la yiraahdo ee aan anigu daadahiyo waxyaabaha aan runtii laga aqoonsanayn waxaa ka mid ah wadanku inaanu gumaysi soo marin ee ay kooxa burcadbadeed ah oo ka kala socday wadamada Britain, Faransiiska iyo Talyaanigu in ay dalka yimaadeen oo ay occupy-gareeyeen gumaysi waxaa la yiraahdaa slavery sidii ku dhacay dadkii madooba ee Mareykanka ee dad inta loo tago la gumaysto gumaysi dhabax ay galaan oo xuquuqdooda way dhacday in dadka xuquuqdooda iyo sharafkooda iyo wadankoodii lagu takrifalay ee dhibaatooyin loo geystay laakiin ereyga gumaysi macna ahaan iyo erey bixin ahaan marka la hordhigay erey bixiyayaasha Soomaaliyeed siyaabo kale ayay u macnaayeen marka kooxa burcadbadeed ah baa la oran kari lahaa waad warka u sheegtay walaalkayow aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa sidaan ku socday weeye waxaan macnaha kaaga jeedaa wadanka kan wax gumaysiya ma soo marin dadkaanina dadka miyiga oo reer baadiya oo calan iska qaatay oo maaragtay dawladnimada iyo maamulka midna aan wax ka aqoon marka horena qabiil wax ku qaybsan jiray qabaa'ilana u kala deganaa gumaysi iyo dhibaatana aan soo arkin markii dambena ay waxay qaybsadeen dad yar oo siyaasiyiin ah wadanka gacanta iskaga dhigay oo ayaguna maaragtay marka iskaga shurkoobo dhexdoodii waxa weeyaan labadii waxa la yidhaahdaa jecelo gabadha isku dirto lixjecel la iskugu daraa baa la yidhi xoogaagii dhaqaalihii iyo wixii daaladu ay ku sumasalaaxaysay rag isku darsaday baa horta wadankaa burburiyey ebersna ka dhigay markaan taa ka gudbo waxaan arkaa aniga wadankayaga Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed maantay maalin ay ka burburan tahay ama ka dhibadan tahay inaysan jirin laakiin aniga ima muuqato wax la yidhaahdo inay heshiinayaan ilaa ay noqoto sida Falastiin oo kale oo ay kala dib u kala googo'aan oo dib u burburaan oo qolob dhinacay u shiidato aniga ima ahan intay isku yimaadaan oo heshiiyaan inay maaragtay ay noqonaysaan dawlad inay noqonayaan oo dawladnimo ka soo baxaysa halkaas uma hayso sababtu waxa weeye carabta la yidhi waa heshiisay markaasna maxay ku heshiisay inaysan weligeed heshiin baa layidhi macnaheedu waxa weeye nimankan la leeyahay waa aqoon-yahan waa professor waa doctor waxa weeye waxaan xasuusanahay oo annagu aan ognahay hadda dawladaha ugu dambeysay inay dadku aan waxay halka ka saxo hadaba adigoo mahadsan Maxamed sidaynu ognahay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool wadankii ama dibadda ku nool wax colaadaha dhex yaala ma jiro ganacsiga wuxuu u dhex maraa si caadi ah guurku wuxuu u dhex maraa si caadi ah dadku wuxuu u wada nool yahay si wanaagsan waxa guriga kan ku xiga qofka Soomaaliyeed uu la degan yahay si wanaagsan oo walaaltinimo iyo sharaf leh waa ay dhamaadeen waayihii qofka loo dili jiray muxuu Ilaahay ku abuuray oo reer hebel kaaga dhigay reer hebel kaaga dhigi waayay ma aad arkaysid oo wiiba yar yahay ama uu si dhamaanaya wacyigii qabaliga ahaa ee qof qabiilkii loo dilo dhibaatadu halka ay ka taala oo ay ka jirtaa imyaan la oran karin
waa siyaasadda. siyaasadduna waxaa inta badan horbooda oo ololeeya siyaasiyiin qolo walbaaba dowladan gaara leh ku xiran oo doonaya in uu fuliyo danta mashruuca loo siiyey ee uu ku wajahan yahay. marka miyaan la oran karin shacabka Soomaaliyeed waa heshiis aad iyo aad baan isku aragtid waxaa maqan hoggaan ku haga hanaan wanaagsan, waayo shacab waa rayd hadba ciddii orienteed garaysa. tusaale markaan kuu siiyo dadkeenu reer miyi buu ah, reer guura ah oo magaalooyinka aan deganayn. magaalo ayaa la bilaabay, magaalo ayaa la qaatay. waayadii dambe dadku halgan daraawiish buu noqday. halgan SYL ururka waxbaa la noqday. gobonimadii baa la gaaray. kacaan baa dadku noqday. jabhad buu noqday. qabiil buu noqday. gobolaysi miyaanay ahayn wacyigii ummadda investmentiga ku sameeya ee dadka haga ee wadada wanaagsan ku haga in haddii ay heli lahaayeen mid wada toosan oo Soomaalinimo u horseeda inay raaci lahaayeen ee shacabku uu yahay dulmanayaal hadba ciddii hoggaanka u qabata ay marin habaabiso oo dhibkana haysta aan ahayn shacabka uu yahay hoggaan wanaagsan inaanu jirin. waxa weeye horta aniga adiga fakarkaygu ma kala foga oo aad baan isugu fakar dhownahay ka aad loo fiiriyo waxyaabo badan oo iska wada fakarnahay baa ka muuqda meeshaan. waxaan kuu sheegayaa waxaan ku yiri ummadda Soomaaliyeed waa dulmanayaal. yaa dulmanaa inta dawladnimada sugaysa ayaa dulmanaa. inta dawladnimada rabta inay hesho baa dulmanaa, laakiin inta doonaysa inay kuraasta qabsato ee madax noqoto ayaa dulminaysa. waxa weeyaan sida muxuu ahaayay nabigeena alayhi salaam noo sheegay nabi maxamed uu sheegay waxa weeyaan ma siino ninkii taga soo doonto oo xukun soo raacay anagu ma siino ninkii loo gartaa la siiya. macnaha waxa weeye waxaad fahmaysaa markaa nin la doortay iyo nin meesha la geystay iyo nin la jecel yahay midna inuusan meesha ku imaanin walba garab iyo marooqsi iyo xoog buu ku tagay. taasoo ay tahay haddana qabaa'ilka xumo anaga nagu jira oo qarmoonka haddana wuxuu sii dilaya. waxaad arkaysaa nin inta marooqsi ku tagay oo xog ku tagay oo dad ku laayay haddana ba kursigii tagay. markii la yiraahdo kursigaan adigu uma qalantid qabiilkiisa baa xanaaqay oo leeyahay qabiil hebel haddaan waxba la siin. qabiil hebelna waxa uu ku yahay ama wax soo doortay ama wax keensaday mid waxaan rabaa barnaamijka qaybtiisa dambe inaan kula wadaago wax yar khadka sidaa ugu jira. haddaba waxaanu milicsan doonaa qaybaha ugu dambeeyey ee barnaamijka oo aanu kusoo gabagabayn doono. haddaba sida aynu la soconno markii qalalaasaha siyaasadeed ee faraha badan uu dhacay isla markaana ay in muddo ah uu socday muranka gobolka Jubbooyinka iyo dowladda dhexe ay ku muransanaayeen sidii ay dowladdaas ama maamul goboleedkaasi u dhaqmi lahaa, ayaa dhinaca kale waxaa garab socday khilaaf ballaaran oo isagana soo kala dhexgalay xarakatu shabaabul mujaahidiin oo kalifay in markii dambe dhegta dhiigga loo daro xubno sarsare oo ka tirsanaa jabhadda isla markaana ay duurka u galaan xubno kaleeto oo ka tirsan. haddaba khilaafkaas aadka u faraha badan ama aadka u ballaaran ee siyaabaha kala duwan dalka uga dhacayay ayaa qaybtiisii ugu yaabka badnayd amaba ugu dhibka badnayd waxa ay ka dhex dhacday xarakatu shabaabul mujaahidiin iyadoo ay kooxo ajnabi ah oo aanay cidina la soconin aan la garanaynin halka ay taageerada ka helayaan in ay sidoo kaleeto ka hor yimaadaan sida la sheegay amaba ay iyagu laftigooda meediyada ka sheegeen qaybo ka tirsan madaxdii iyo maamulkii isla xarakada dhexdeeda. haddaba aqoon-yahano Soomaaliyeed oo ifafaaleeya amaba tusaalooyin ka bixiya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa qaybtood waxa ay iyaguna qabaan in ay faragelin shisheeye oo fara badan ay ku dhex jirto isla markaasna uu jiro wing ka mid ah wingiyada amaba garab ka mid ah garabyada shabaab in ay leeyihiin hay-adaha caalamiga ah amaba sirdoonka caalamka isla markaasna ay ku fushadaan waxa ay doonayaan amaba cidii ay doonayaan inay ku dilaan isla markaana iyagoo koox difaacaya kooxna duulaan ku ah doonaya inay dalka danahooda ka fushadaan. haddaba khilaafka halkaa ka dhashay ayaa waxaa dadkii khilaafkaas ka hor yimid ka mid ahaa amaba uu saameeyey ka mid ahaa Xasan Daahir Aways oo isaguna ahaa hogaamiye ruuxi ah oo ka tirsan hogaamiyeyaashii maxkamadaha islaamiga ahaa isla markaasna ah gudoomiyaha xisbiga islaamka Soomaaliyeed ama gudoomiyihii xisbil islaam, taasoo markii dambe kaliftay in uu gacanta u galo maamulka amaba dowladda dhexe ee Soomaaliya markii horena gacanta u galay maamulka xibin iyo xeeb oo kusoo wareejiyay dowladda dhexe. haddaba ma isleedahay Xasan laftigiisu waxa uu hoggaanka u qaban karaa hanaan nabadgelyo maadaama uu khibrad siyaasadeed wadanka u leeyahay, maadaama uu wax ka og yahay dhibaatooyinkii faraha badnaa ee wadanka ka dhacay, maadaama uu xaqaa'iqda dhabta ah ee ka dhex jirta shabaab isla markaasna uu taageerayaal fara badan meelo kala duwan ku leeyahay? ma la oran karaa wuxuu noqon karaa furihii horseedi lahaa nabad dalkan ka curata? ma la isdhihi karaa
iscafis iyo waxaa ka halkaa ka bilaaban kara in shabaabka laftigoodu qaybo ka mid a amaba dhallinyarada intooda badan lagu dhiirigeliyo inay joojiyaan dagaalka waddankeena ka soconaya si loo helo nabad cadaalad sinaan iyo wadajir. maxamed kusoo noqo. waxa weeyaan horta walaal aad baad u mahadsan tahay. waxa weeyaan horta laba su-aalood oo labaduba meesha yaaliin baad ii sheegtay oo mid waxa weeyaan horta gacmo shisheeye waxa la yidhahdo gacmo shisheeye horta kama maqna meelna ay ka maqan yihiin adduunka lama arko. meel walba gacmo shisheeyaa ku jiro dawlado dhisan oo shidaal leh oo batrool leh oo wax walbaba la baabiinay. maanta nashaad la socotaba waxa weeyaan aad iyo aad baa dadku u kala xag jiraan oo dad badan oo maanta muslim lagu leynaya ama wax lagu taageeraya ama wax lagu qabanaya waa jiraan. nin keliya hub samaysan Soomaaliya hub ma samaysato warshadana ma lahan. hubka dhammaan waayay oo 23 sano socdana Soomaaliya ma samaysato lacagteedana ma haysato. waxa weeyaan dad ciidamo shisheeye dad shisheeye oo madax shisheeyaa keena kuna maalgeliya mushaar baa la qaataa lacag la qaataa bilal baa la bixiyaa dib baa isku xiran ciidamo la qoraa la sameeyaa. marka laftigaagu ma aaminsan tahay in waxa aqoon-yahanada amaba dadka qaybtood ay sheegayaan ee ah in shabaab qaybo ka mid ah uu shisheeye leeyahay ku adeegto dadka lagu laayo inay wax ka jiri karaan? maya taas waa wax cadaan weeye xaqiiq ballaaran oo war oo jirta weeye. marka waxa weyn taas waxaan ismana weydiinayno malihin annagu waxa weyn shabaab waa wiilashii yaryaraay oo shalay ciddu dhisay oo meesha ka baxbaxay nimanka hubka u keena ama meesha walba ka keena waa ogtahay inay dad cadaan yihiin. ogtahay lacagtu meesha ka timaado iyagoo taa muujinaya waxa ay sheegeen in isla iyaga dhexdooda dad ajaanib ah oo la joogo ka mid ah inay dilaan amaba sababtii loo dili lahaa ay sahlaan kooxa iyaga ka mid ah oo isla markaa magacii la wata isla ururkii shabaab kala dhex tirsan isla markaana u adeegayo weliba xiriiro laleh ay ku hagaan drones iyo diyaaradaha wax gumaada ee cirka wax ka toogta. marka arrimaha miyaan la oran karinba waxayba muujinaysaa wax dhabahoo la taaban karo oo jira. maye waxa weeyaan aniga waxa weeyaan ninkastoo aan hadda live isku hor fadhiyo live waa isku maqlaynaa laakiin aan live isku hor fadhiyin arrimo badan oo aan ogahay baa jira anigu oon aad iyo aad u xaqiiqsaday dibna raadiyey hadda markii timaaduhu bilaabanayo xarakada shabaab ay bilaabanaysay rag Soomaaliya oo ka soo baxay America oo soo galay oo dabcay inay shabaabka ka feer dagaalamaan waaga xaarada waddanka soo gashay niman cadaan oo la socdo diyaaradaha isku soo wareysteen kabacdina ragii markii sheekadii fashilantay oo meesha amxaarada iyo wixii ay qabseen oo la kala cararay ragii rag kamid ah la soo qabtay ragii la socday iyaga oo is arkeen oo diyaarada isku arkeen ama ay ku kulmeen goobaha maartay aeroboorada oo markaas ay u wada socdeen inay xarakada shabaab ka mid noqonayaan inay kabacdina maxkamad saareen oo iyagii maxkamadihii ugu tageen. waa gartay maxamed haddaba marka aan su-aasha ugu dambaysa ku weydiiyo haddaba maadaama khilaafyadaas ay jiraan ay muuqanayso in shabaabka qaybo ka mid ah sidii dukaankii McDonald's franchise laga dhigtay ee la isticmaalayo khilaafaad fara badan dhexdeedii uu ka dhex jiro iyagii qaybo ka mid ah la dilay qaybo ka mid ah ay baxsadeen isla markaana Xasan Daahir Aweys uu gacanta dawladda maanta ku jiro miyaanay kula ahayn in ifafaale nabadeed uu horseedi karo halkaa in la yiraahdo lagana faa'iideysto khibradiisa iyo waayo-aragnimadiisa si waddanku nabad u noqdo؟ wallahi aniga kulley fakar ahaan ma qabo oo fakarkaas waa mid aad aan kaaga fogahay in Xasan Daahir Aweys uu dalkan u keeni karo wax nabada uu soo qaadi karo. maalin uu ka sahlanaaba jirtay inuu Daahir Aweys keeno waddanka nabad u keeno maalmo badan oo ka sahlanaaba ka jiray. Xasan Daahir Aweys dagaalada maanta socda aaba iyo adeer buu yahay asoo sida waxaad isleedahay marka dhibaatadan maxaa lagu xalin karaa? waxaad isleedahay in la dagaalamo oo shabaab in awood laga awood bato oo awoodo kale la keeno oo ciidamo fara badan oo cusub la keeno oo ciidamo kale la keeno oo dagaal lagu xaliyay mooyee miyaan wadiiqad nabadeed iyo halkii nabad loo mari lahaa kaalin inuu ka qaadan karo aanay kuu muuqan? waxaan u malaynayaa hadda inkastoo hadalkaygu soo gabagaboobi rabo aniga sideeda waxa weeyaan laba qof oo diriraysa oo isxoog la-eg sida ay ku heshiiyaan horta way adagta totally mintoba aniga iyo adigu haddaan isweerno xoog la ekaano ma dhacayso inaan talaasulaad isku samayno absolute ma dhacayso laakiin haddii aad iga xoog badiso oo aad irido waa laga yaabaa inaan aqli isticmaalo oo idhaahdo war ninkan waa kusii dilayaa markee iga kaadi bal marka inta ka tabaraysanayso. meeshan waxa weeyaan Soomaaliya labana kala xoog badna qabiil lagu kala adkaan waa sidoo kaleeto oo dawladeed lagu kala adkaan waa waxbay sii dhaleen waxa weeyaan waxbay dhaleen aniga ma qabo marka
in maantay inta la yidhaahdo hebel iyo hebel baa kala adkaaday hala wada hadlo inay dhacayso waa waxaan dhacay waa in labada qola jabtaa ama dawladan meesha laga saaraa ama shabaab meesha laga saaraa wax kale oo socon kara oo meesha heshiis oo ka dilaacay kana ma qabo inay marka waxaa qabtaa in dagaal lagu kala adkaado mid in laga adkaado ya waad mahadsantahay haddaba kaaso waxa uu ahaa maxamed aqoonyahan ka tirsan amaba dhegeyste ka tirsan dhegeystayaasha TV-ga Star TV oo magaalada London nagala soo hadlayay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel iyo waa ay joogto waxaanu ku dhiirigelinaynaa qof walba oo maanta marxaladda lagu jira wax ku kordhin kara wax ka bedeli kara in uu maanta dalkiisa u helayo xitaa isagoo gurigiisa jooga wixii uu qaban karo ama qoraal ha noqoto ama wacyi kale ha noqoteeba inuu kaga qayb qaato waxaan siinaynaa dhegeystaha labaad Aamina oo London ka soo hadlaysa ku soo dhawaad Aamina aragtidaada السلام عليكم ولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا سو دhow aragtidaada maxay kula tahay walaal waxay ila tahay arrinta Soomaali iyo shabaab waxay ila tahay sida hadda u sheegtay ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Daahir Aweys in uu al-shabaab sir badan ka hayo una u baahan tahay in laga faa'iideysto telefonka igala soco walaal in laga faa'iideysto uu u baahan yahay marka waad aaminsan tahay in hanaan nabadgelyo uu ka qayb qaadan karo ay muhiim tahay in maaragtay oo maba wax uun horseedi kara nabad ku saabsan dhinaca shabaab iyo marka loo eego kooxaha ay dawladda ka soo horjeeda 100% abuu markii ugu horeysay waxa jirta marka hore hadii lagaaga shubo ciid arinta adarta Xasan Saahir Aweys iyo wadaadadii ka horeeyay Sheekh Shariif kamid ahaa dad Soomaaliyeed oo diin wadanka ku hagaaya ayay ahayd ee Soomaaliyana looguma bataligelin ama caalamka islaamka diin wax la yiraahdo in lagu dhaqo micnaha marka adduumada markii anaga hadii naga awood badan yihiin hadda waxay u eg tahay raggaas marka hore rag ciid looga shubay inay ahaayeen hadda wadaadadeena xataa qof bareeri kara inay dadka Soomaaliyeed kala celiyaan anagu dad islaana hadda fiir meelaha masaajida marka lacagta loo aruurinayo waxa wax walba dhiso oo intaas oo bilyan bixinayo waa dad Soomaaliyeed saddebaad tadi jirto wadaadada Soomaaliyeed hadda inay isku yimaadaan inay dhahaan war wadankeena dagaal baa ka socda sideen ciidamadeena u dhisnaa sideen lacag u aruurinaa ma jirto mana sameyn karaan lafooday u baqayaan waa dad taarki garaysan hadda muddo ugu weyn oo naxdinta badan waxay tahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo wadankan ku dhalatay hadda maalintii madaxweynaha markii la soo dhaweynayay uu imaanaya London wiilal badan oo security oo Soomaaliyeed ayaa joogo micnaha dadkaas waa dad Soomaaliyeed oo dad dawladaha ay la joogan baa tababartay micnaha jirka bay Soomaali ka yihiin ee maahan dad Soomaaliyeed micnaha marka dadka Soomaaliyeed waxaan ku tirnaa odayaasha dalka inuu dago war inaad dib iskugu noqotaan annaga wadankan malihin wadan waa wadankeena Soomaaliya waa garta marka ma waxa leedahay madaxweynuhu markuu imaanay ilaalo Soomaali ah oo wadamadan ay tababarteen baa la socday wiilal ma lama socon wadanka gudihiisa bikay wiilal dhalinyaro ayaa la socday markuu hoteelada u tagayay Soomaaliyeed waa gartay oo ilaalo ah wiilashaas madaxweynahana soo ma dirsan micnaha waa dad Soomaalida ku maqan oo dadkan Ingiriiska ay tababarteen waa gartay waa anigu kulay aad baan arinta u soo dhaweynayaa marka waxaad leedahay waa muhiim in Xasan Daahir uu ka qayb qaadan karo hanaanka nabadgelyo iyo dib u heshiisiin wadankeena ka aslaxda 100% walaal wuu ka qayb qaadan karaa mid kale waxa jirta ma taqaana anigu waxaan fartiin u furayaa dadka reer Muqdisho degan waa gartay dadka Soomaaliyeed dadka reer Muqdisho degan hay iska daayaan cabsida tirada badan leh ha soo banaan baxaan ha iska celiyaan al-shabaab iyo wixii la mid ah ciidamada Soomaaliyeed ha garab galaan kuma ayna dhaqaale badan haysanin oo aysan iskarigi ninka dhaqaale badan kuma filna waxa loo baahan yahay hooyada Soomaaliyeed waxay caado inay agmaray biyaha raashinka siiyaan iskariga oo ka tirsanaado aamina su'aal halka aan ka weydiiyo iga weydii waa hadii horta xal kale la waayo in la dagaalamo oo la dagaalamo waa go'aanada ugu dambeeya kamid ah laakiin maxaa diidan in iridaba hoo nabadeed la furo waayo waxaa jira hooyooyin fara badan oo qalbiga ka ilmeynaya oo la dhahayo wiilkaygii baa halkaa ku jira odagaygiiba xagga ku jira ina adeerkaybaa ku jira miyaanay habooneen in iridaba hoo nabadgeliyo oo dib u heshiisiineed meel walba laga furo walaalo waa wax jiro kelmadda lama diidana saninka uu Mareykan soo dirsaday
oo ku dhex jiro dadkii Soomaaliyeed ilaa dadka Soomaaliyeed amxaar waa la yaqaan Soomaali waxa ka bixiyay rag Soomaaliyeed ka bixiyay markay wadankeena ku soo duuleen dadkii mid marka waxa jira munaafaqa oo lagu soo dhex darsaday ina adeer oo Soomaali kelmad qaanid Mareykanka u jaajuusay Ingiriiska u jaajuusay micnaha dadkii waa inuu ku dhahay ciid baa diin Soomaaliyeed ugu daadiyay dareenkaaga qaaliga aad ayaad ugu mahadsan tahay oo waliba ay marka in adeer waxaad iga gaarsiisaa dadka Soomaaliyeed biliis adoo iga goynay waxaan codsanahay dadka reer Muqdisho goon gabe okay dadka reer Muqdisho inay iska daayaan cabsida ay sameeyaan maxaa tira tartan aad baan ugu mahad celinayaa in dadka degmooyinka oo la geliyo in xaafadaha maxaa tiraahdaa iska soo horjeeda ay laga qoro maxaa tiraahdaa dhalinyaro Soomaaliyeed way baqaan ani Soomaaliyan tagi waa wax la iga sheekeynaya maahan micnaha qofkan wuxuu ku leeyahay maxaa iga galaan iskarigaan hadaa iskar la hadshid qofta calaamadeysanata waa lagu dilayaa caaw marka inay ka gudbaan dadka dhibaatoonay waa dadka reer Muqdisho dadka dhibaatoonay waa dadka reer Muqdisho inay reer Muqdisho iska dulqaadaan cadawga dusha saaran aamina aragtidaada aad ayaan soo dhaweynayaa aad ayaad ugu mahadsan tahay qof walba oo Soomaaliyeed oo dalka aragti iyo waayo nololeed amaba wax ka bedeli kara waxaan qabnaa bal in uu dadaalkiisa halkiisa ka ambaqaado dalku wuxuu u baahan yahay qof walba oo Soomaaliyeed waa dalkaagii adiga wax lagu baray waxaan aaminsanahay in kan dagaalamaya xabada ridaya ay hooyo Soomaaliyeed dhashay kan uu xabada ku ridaya iyo kan isaga laftigiisa xabada ku ridaya ay hooyo Soomaaliyeed dhashay hooyadaasi ay qalbiga ka ilmeynayso oo una baahan tahay hanaan nabadgeliyo iyo dib u heshiisiin dhaba ina abu ta sheegayso waa wax saxa nin lagu soo adeegsaday sideed uga bixin kartaa nin lagu soo adeegsaday hadda Kenya wadanka waxa la rabaa nabadgeliyo inay ka dhicin Kenya waxa la yiri maanta al-shabaab waxay leedahay waa ku duulna annaga maxaa naga galay Kenya micnaha Soomaaliya sidii loogu bisoolahayo biril dhiilaha loogu soo duulaa diyaarada loogu qixin la dariiqooday sameynay taana Soomaali waxay ka dambeeyaan waa dad ajnabi waxay ka dambeeyaan aad iyo aad ayaad aamin u mahadsan tahay dabcan wuxuu kaasi ku tiirsan yahay wiil Soomaaliyeed oo hooyo dhashay wiilka in loo yeero kalgacal la tuso nabadgelyo loogu baaqo si hanaan caawa buu yeereena meel kale intaad tagin in aaba haddaan u yeereena war al-shabaab dan Soomaali uma ahan ka soo bax walaalo dalkaagi wax ka qabo kan u ruufiyaanaya ninka shisheeye annaga nama quseeyo meeshaan gumeysaan ku joogna annaga meeshaan ku joogno isxaan baan ku joogna kuma joogno aamin waxaan ku yiraahdo wadanku wuxuu leeyahay maamulo iyo dawlad dhexe oo wadanka ka jirta in irid walba la furo qorshe qaran oo guud la furo la yiraahdo xitaa dadka ku doodaya masaa'il dhaba oo waxa jirta iyada laftigeeda u baahan tixgelinteeda in la siiyo oo leh in qodobka 407 fidqada 9 xarafka ya lagu dhaqmo dilbaan ka xiga oo la ignore gareeyo Ilaahay kitaabkiisa iyada laftigeeda in dooda laga furo laga wada hadlo oo masaa'il runtii legitimate ah oo jira ayaa iyagana jira waxyaabahaas oo dhan marka waxay u baahan tahay in si maaragtay waadix ah abuu taasheegay lama diidana war maalintan taas gaarna hadda nabiga calayhi salaatu maalintii uu Madiino asagoo xadka u socdo laga celinayay markii abow laga celinayo waqti annaga aan iska celi karno oo dhihi karno war waxaan maalinay noo imaanaysaa aan gaarna maanta annaga gurguuranayno dalkeena dhinac kasta looga soo duulayay war aayad miyaan diidana Soomaaliya qofka islaamsan ma jirto kii gaalana qorta laga gooyaan taagana maanta maalinteedii ma tahay waa su'aasha meeshta aamin barnaamijka qaybtii ugu dambeysay aan ku jirnaa laakiin arinta haddaan kaaga jawaab waxa weeye in xafiis la furo la yiraahdo ninkii nabad u baahan ama guri dhan la sameeyo la yiraahdo gurigii nabadda gobol walba laga sameeyo cidii nabad ka qayb qaadanaysa ergo soo dirsato waa wax yar oo aan kharash badan ku bixaynin oo la fulin karo kana sahlan in dagaalka la sameeyo marka aamino barnaamijka gabagabadiisii baan soo gaarnay aad ayaad ugu mahadsan tahay aragtidaada waxaan ku leenahay barnaamijka oo aan intaa ku soo gabagabayn doono toddobaadkiisa iyo xilliyada kale oo aad ka qayb qaadan kartid inaad insha Allah nagala qayb qaadato haddaba dhageystayaal iyo daawadayaal meel iyo waa aad joogtaanba barnaamijka halbeeg oo toddobaadkiiba mar sabti walba 9 fiidnimo ka baxa Star TV waxaanu inta badan ku soo qaadanaa taariikhaha wacyiga bulshada iyo maraaxiisha kala duwan ee dalkeena iyo dadka Soomaaliyeed ay dariska u yihiin ma kula tahay inaad wax ku kordhin kartid dadkaaga inaad wax ku kordhin kartid ma doonaysaa inaad ka qayb qaadato isbedelada aanu doonayno in dadkayaga iyo dalkayaga ku talaabsado in dalkii dib loo dhiso horumarkii wadankeena laga qayb qaato haddaba barnaamijyadaas oo dhan qof walba isagoo individually ama shakhsi ama koox ama dad is abaabulay ayaa ka qayb qaadan kara kaga qayb qaado barnaamijka degmada aad ku dhalatay tii aad ku barbaartay classmateskaagii asxaabtaadii
ha fariisan ee wixii aad qaban kartid qabo ayaanu dadka kugu soo gabagabeynayna haddaba intaa waxaynoo ku dhan barnaamijkeenii caawa iyo toddobaadkan ee halbeeg inta aynu toddobaadka xiga barnaamijka ku kulmi doono waxaanu ilaahay ammaanadiisa iyo idinkaga tegaynaa kulanti wacan oo wanaagsan nooli kulantee ismaqal dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu